السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دو عشر كني أفراد. كورس كني essentials for Illustrator CC. عشر كنا أفراد. وحنكو قادن دونا tools panel guide. وحنكو بران دونا tools كا. عشر كن وحنكو بري دونا tools panel كا. وانا هالك أتكيلي دونتو دمان tools كا دو باهنت هاي سيادو قصة ميسو. howlahaaga ama shaqooyinkaaga naqshadeed si aad ugu soo bandhigto hal abuurkaaga iyo creativity-gaaga waxaad ugu baahan doontaa inaad isticmaasho tools panel-ka. waxaan ku baran doonaa cashirkeennan magacyada toolska. waxaan cashirkan kugu bari doonaa magacyada toolska. waxaan sidoo kaleete kugu bari doonaa halka ay yaalaan ama halka uu yaallo toolka aad u baahan tahay. waxaan sidoo kaleete cashirkan aan kugu bari doonaa keyboard shortcut keyboardska uu leeyahay tool walba. waayo adigoo dhex joogo artboardkaaga inaad muuskaagii soo qaado oo aad dul tagto tool waxay kaa qaadanaysaa ama waxay sababaysaa inuu waqti meesha kaaga lumo haddaba si shaqadaada ay u noqoto mid fastiya oo speeda. waxaan insha Allah ku bari doonaa keyboard shortcutska uu leeyahay tool walba. sidaa darteed waxaan haddaba kuu soo jeedinayaa in aad daabacato dukumentiga halkan yaallo oo aan linkigiisa kuugu share garayn doono isagoo PDF ah descriptionka videogan insha Allah. haddaba waxaan horey usoo sharaxnay in toolska aan ku samaynay ablaablayn ama koox-kooxeyn aan ku samaynay annagoo koox-kooxeyntaasna u eegayna hadba toolka iyo shaqada uu qabto. haddii aan ku soo xusuusiyo waxaan qaybta koowaad ee toolska ku sheegnay in loo yaqaano selection tool. selection toolku waxa uu qabtaa selection. haddaba sida uu u qabto ayaa kala gedisnaan doonto. hadba waxay ku xirnaan doontaa baahida selection ee aad u baahan tahay. soo qaybta koowaad ee toolska waxaa loo yaqaanaa ayaan soo dhahnay selection tool. waa qaybtii wax lagu select gareyn lahaa ama wax lagu dooran lahaa. qaybta labaad ee ku xigto waa qaybta loo yaqaano iyaduna type and brush tool. waa qaybtii kuu qaban lahayd marka aad text aad ka shaqaynayso. also brush strokes aad ka isticmaali lahayd. also waxaa meesha ku jiro pen toolkii. also waxaa ku jiro curvature toolkii ku jiro. qaybta ku xigto ee qaybta ka dambayso qaybta labaad qaybta ka dambayso waxaa loo yaqaanaa transformational tool. transformational tool maxay qabtaan? transformational tool sida aad magacoodaba ka dareemayso waa ashyaa wax ka bedesho shayga markaa kuu select garaysan ama waxa markaa aad ka shaqaynaysa iyo wax ka bedelaan sida rotationkiisay bedelaan sizekiisay bedelaan sizekiisay wax ka bedelaan. also laba shay intaad isku darto shay cusub aad samayso waxay kuu bedelayaan marka shayga hortaada yaallo. soo marka qaybta iyada ah ee loo yaqaano transformational toolka waa qaybta wax ka bedelayso shayga aad markaa ka shaqaynayso. qaybta ku xigto waa qayb loo yaqaano color informational. although color informational uusan ahayn real brand name-ka loo yaqaano qaybta, laakiin xusuusnow marka aan ablaablaynta samaynaynay waxaan sheegnay in aan u kala koox-kooxayn doono toolskeenna hadba shaqooyinka ay qabtaan. so waxaan qaybtan u dhahnay marka color informational waxaan u dhahnay waxay intooda badanba la shaqeeyaan colorka. tusaale ahaan midka u horeeya ee mesh toolka loo yaqaano waa midkii samayn lahaa isku darka midabada kala gedisan adigoo points isticmaalayo oo si live-ana markaasi midabkaa doonto ugu bedelayo ugu shubayo. qaybta kale ee ku xigto ee loo yaqaano gradient toolka ayadu waxay isku dartaa laba color iyo wixii ka badan, laba midab iyo wixii ka badan. qaybta kale ee ku xigto ee eyedropperka waxay sambalkaaga qaadaa color aad doonaysid inaad siiso shape markaa kuu dooran. soo marka waxay soo qaadaysaa attribute colorkii shaygan uu lahaa waxay siinaysaa shayga kaleete markaa selectionka kuugu jiray. qaybta kaleetana waa blend. blend waxay isugu kaa daraysaa laba shay oo laba midab oo kala gedisan lahaa ayay isugu kaa dhex daraysaa. soo marka blend sidaad magaciisa ka fahmaysidbo waa isku daris ama isdhexgelin midabada ah. qaybta ku xigto waa symbol spray toolka. symbol spray toolka waa tool
very magic ah waadna baran doontaa insha allah waxa uu qaban karo yaanan hilmaamin tool kasta oo aad ku aragto dhinaciisa fallaar yar oo sii jeeda waxaa ku jira another more tools oo badan waxaa ku jira another more tools oo tiro badan ayaa ku jiro tool kasta oo aad dhinaciisa ku aragto fallaar yar oo hoos sii jeeda waxay kuu tilmaamaysaa in toolkaasi ay ku sii dhex jiraan tools kale fara badan inay hoostiisa ku sii jiraan dhammaan marka qaybaha kore midka aad ku aragtaba qaabkaas waxaa ku dhex jiro another tools kale ayaa ku sii dhex jiro oo isaga la shaqayn doono oo shaqooyinku qabta qaban doono marka spray toolki iyo waxaa meesha noo yaalo iyo chart toolki laftiisa hadda waxaa noogu sii dhex jiro pie chartigii every type of chart aad u baahan tahay meeshan waad ka helaysaa oo diyaar uu kuugu yahay waxaa intaa kasii dambeeya oo noogu xigo qayb loo yaqaano navigation ama document navigation kuwan waxay inta badan ku shaqo leeyihiin inay wax ka bedelaan documentiga inay wax ka bedelaan waxaa ku jiro artboard toolkiga ku jiro oo artboardka hadda noo samaysa haddaan yareynayna aan weyneynayna meesha ka isticmaalinayna slice toolkiga noogu jiro slice toolka wuxuu qabtaa wax inta badan isticmaalo oo sida magaciisan aa ka dareemaysa waa kala jarid ama kala goyn waaye waxaana isticmaala inta badan dadka ku shaqeeya web designinka ama sameeya web layoutka ayaa isticmaala hand toolka oo ah free hand tool aad documentiga hadba geeskaa doonto ugu jijiidi karto waxaa intaa ku xigo zoom toolkii oo isagana aan horey usoo tilmaamnay intaa kadib marka waxaan noo imaan doono koox kale oo ayadana loo yaqaano color controls qaybtan waxay noo qabanaysaa in aad hadba markaasi aad go-aan ka qaadato waxa aad soo kormarinayso tusaale ahaan haddii aad soo kormarinayso fiilka inaad fiilkaagii hore keensato haddii aad soo kormarinayso strogina inaad strogii kor keensato soo marka waxa waaye waa swapping waxaad isku bedelaysaa fiilkii strogii qaybta ku xigto waa color moodiska waxa waaye hadba moodka aad isticmaalayso waxa aad rabto inaad u isticmaasho shapekan ama waxaan hortaada yaallo ma waxaad u isticmaalaysaa one solid color hal midib oo solida wuxuu doonaa ahaado ama guduud ama jaalo ama cagaar anything uu doonaa ahaado one color solid maad qaadanaysaa maya ma waxaad qaadanaysaa gradient oo laba midib ayaad shapekan siinaysaa oo isku darsamayso mise wax midiba ma siinaysid oo waxaaba ka dhiganaysaabo nan ayaad ka dhiganaysaa qaybta ku xigta qaybta waxaa loo yaqaana drawing toolka waxa waaye inaad shay dhex geliso inaad shay ku dhex samayso marka isagana waxaa noogu jiro hadba drawingka ama go-aanka markaasi aan qaadanayno draw normal draw also behind shaygan gadaashiis wax ku sameey iyo draw inside this shaygan dhexdiisa waxaan dhexgeli qaybta u dambeysa ee toolska waa qaybta loo yaqaano screen moodka waxaa ku guda jiro ama dhexdiisa ku jiro hadba screenka arno inaan aragno tusaale ahaan normal screen maan u baahannahay full screen maan u baahannahay full screen with menu maan u baahannahay and so on so sidaa darteed marka waxaan kuu soo jeedin lahaa in toolskan si aad familiar ugu noqoto si aad xariif ugu noqoto in aad tool kasta intaad dul tagto aad fiiriso shortcut keyboardka aad fiiriso documentiga aad daabacato wax badan oo waqti iyo time aad geliso si aad u noqoto qof familiar u ah toolskan because wixii ka dambeeya cashirkeennan waxaan bilaabi doonaa oo si toosa u geli doonaa insha allah hawl iyo shaqo intaa kadib waxaan rabaa inaan kuu tilmaamo tools gaar ah oo koorskeena intaan ku guda jirno aad daruuri noogu noqon doono ama aan aad ugu baahan doono iskuna day inaad barato insha allah inta qaybta ka dambeyso ee haddana aan sharaxaadda ka bixinay maalinba mid ayaan insha allah u tallaabi doonaa soo marka toolska koorsadan daruuriga u ah ama muhiimka u ah waxaa ugu horeeyo selection toolka oo ah black arrowgaas ama fallaarta madow waxay samaynaysaa selection oo whole selection ah qayb middan ku xigta iyada ku aadan waa midka iyaduna very basic noo ah daruuriga noo ah ee koorskan aadka loogu baahan doono waxaa loo yaqaanaa direct selection tool waxay wax ka qabataa ama ay ka shaqaysaa anchor points ayay la shaqaysaa anchor pointyada ayay la shaqaynaysaa iyadu anchor pointyada waxa waa meel kasta oo point uu imaanaya meesha ayay la tacaamulaysaa oo ay la falgelaysaa waxaa sidoo kaleete aan isticmaali doonaa oo ayadan raar laakiin nagu noqon doonto magic window tool oo qabanayso selection magic ah waxay haysataa arithmetic operations ku jira algorithm ay wadataa
algorithmkaasay ku select garaynaysaa range ama midab gaar ah oo ayada la siiyey ku select garaynaysaa. Also waxaa meeshaan noo yaalo laser tool waa kii aad taqiinay oo selectionka photoshopka kusoo aragtay. laser tool isagana selection oo anchorska geesaha laga siinayo oo selection aan ku samayn doono insha Allah. isagana waan u baahan doonaa oo isticmaali doonaa. waxaa intaa ku sii xigo pen toolka dadka marka ay baranayaan Illustrator ama dadka Illustrator ku shaqeeya laftirkoodaba qaar baa aad uga cabsado because of techniques ay tipska u baahan yahay. laakiin haddii aad koorskan si sax ah u qaadato waxaad noqon doontaa qof ku raaxaysta xariifna ku ah ku shaqaynta pen toolka waxaa noogu aadan tool isagana very magic ah oo inta badan noo samayn doono ama noo qaban doono waxyaabaha carviga leh sida magaciisa uga jeedaba curvature tool waxa uu qaban doonaa waxyaabaha sida angle-ka geeskiisa ama circle-ka geeskiisa oo kaleeta waxyaabaha carviga iyo qalooca ku jira noo samayn doona. waa tool gadaal looga soo daray Adobe Illustrator CC oo muxuu ahaa dadka qaarkood ku cusub ama aan horay aad loo isticmaalin, laakiin waxa uu qabto iyo faa'iidooyinkiisa insha Allah koorskan inta ku guda jirnad aad u baran doontaa. waxaa intaa noogu sii xigo type toolka waxaa ku jiro a lot of features oo aad muhiimka ugu ah oo aad ku raaxaysan doonto haddii aan gudaheeda furno. sida hadaataba aan kuu sheegay markastoo aad toolka dhinaciisa ku aragtay fallaar waxaad kasii dhex arki doontaa another tools kaleete oo kaa isaga empower garaynaya aad kasii arki doontaa. so area type-kia ku jiro, type on path-kia ku jiro, vertical area type-kia ku jiro and so many more. bit by bit ayaan insha Allah u baran doonaa toolskan hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaa intaa kusii xigo curve toolkii iyo spiral toolkii iyo line segmenting toolkii iyo rectangular grid toolkii waxaanu dhan insha Allah bit by bit aad u baran doontaa hadduu Ilaahay yiraahdo. laakiin kuwa hadda aan tilmaamayo ama toolska hadda aan tilmaamayo waa kuwa very basic ah ee inta aad koorskan ku jirto aad u baahan doonto. so waxaan mar kale kuu soo jeedinayaa inaad toolskan si wanaagsan u barato, si wanaagsan u xifdiso shortcutskooda adigoo ka faa'iideysanaya dukumentiga aan kuu dhigi doono linkiga hoose ee cashirkan hadduu Ilaahay yiraahdo. waxaa intaa ku xigo shape toolka waxaa gudihiisa kusii jiro oon kasii dhex arki doonaa rectangle toolkii, round cornerkii, ellipsigii, polygonkii, starkii iyo flare toolskii oo ahaa iftiinkii iyo muxuu ahaa iyo waxyaabihii effectiga yaraa ku dardaraya dukumentigeena. waxaa intaa kusii xigo brush toolka oo isagana ah tool very magic ah oo aad markii aad si sax u barato insha Allah aad dhihi doonto this is the best one. all the tools meeshaan yaallo kulligood waa wada magic because that's why uu softwarekan u yahay standard software oo graphic designers ay isticmaalaan. every tool oo meeshaan yaallo he is doing a great job. anaa taas kuu sheegayo kuuna sharxayo kaana dhigi doono insha Allah mid familiar ku ah si fiican u isticmaalo toolska meeshan noo yaallo dhammaantoodba. haddaba toolskaas ee aan hadda soo tilmaamnay ee aan kor kusoo sheegnay ee laga soo bilaabo selection toolka ilaa iyo eraser toolka also penkii kusoo dar kuwaas ayaa waxay noqon doonaan kuwa basiga noo ah. waxay ila tahay in cashirkan wixii ka dambeeya aad si fiican familiar ugu noqon doonto qaybtan loo yaqaano tools panelka. haddaba muhiim maaha inaad marka koowaad ee aad daawato videogan aad familiar la noqoto. laba shay baan kuu dardaarmayaa in videogan aad ku ceshato wax kasta oo shaki uu kaa galo inaad u imaato aad reference ka dhigato kusoo laalaabato. also inaad daabacato documentiga ku ooli doono insha Allah linkiga descriptionka videogan inaad la degto filekaas PDF-ka ee aad daabacato ee aad akhriso la dul tagto computerkaaga oo aad ku practice garayso oo aad marba xaraf taabato. tusaale ahaan V haddii aan taabto waa selectionkii, Y haddaan taabto waa magic toolkii, A haddaan taabto waa direct selectionkii, Q haddaan taabto waa laser toolkii and many more. inaad documentiga intaad soo hordhigto aad xarfihiina taabato waxa ka dhacayo tool panelkaagina aad eegto. ugu dambeyn waxay ila tahay in cashirkan wixii ka dambeeyo aad noqon doonto qof familiar ku ah, xariif ku ah magacyada meelaha ay yaalaan iyo shortcut keyboardska uu leeyahay tool walba. aad baad u mahadsan tahay. waxaa inoo balana cashirka xigo iyo annagoo horay u tallaabsanay insha Allah.